maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo la hadlayay taageerayaal tiro badan oo ka soo qayb galay munaasabad lagu shaacinayay inuu mar kale u taagan yahay inuu ka mid noqdo musharaxiinta u tartamaya xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceerigaabo ayaa ugu horeyn u mahadnaqay bulshada iyo madax dhaqameedkii u soo gartay inuu mar kale hogaamiyo. waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka reer Ceerigaabo ee degmada Ceerigaabo halka waxa ka maqlaysay uqaal tiri waanu soo xullay waxayna keeneen garoonka cayaarta ayayna keeneen cidda waanu ugu mahadnaqaynaa runtii dhulka ayna soo xuleen iyo karitaanka masraxa ayna keeneen laakiin codka waxa iska leh reer Ceerigaabo ummadda degan ee joogta ee ehelka ee midda qura ee halka wada fadhida iyo kuwa inaga maqanba. maayir Ismaaciil Xaaji Nuur oo hadalkiisa sii wata ayaa faahfaahiyay waxyaabaha uu qaban doono doorashada ka hor isagoo sheegay in wixii hore ay shacabku og yihiin oo cadeeyeen. waxaan cadaynayaa reer Ceerigaabo inuu hal caylada yahay kulligii wadan isdhalay wadan isku isira wadan meel ku wada nool ilaahay waxaan ka baryayaa inuu bogcadkooda isu mariyo burcad waa usrad qura ninka yidhaahda qabaa'il bay kala yihiin ama waxbay kala yihiin waa beentii. maayirka oo ka hadlayay waxqabadkiisa ayaa yidhi bulshada Ceerigaabo anigu qof waxba umaan tarin una tari maayo laakiin waxaan idin ballan qaadayaa in magaalo cusub iyo qorshe cusub aan sameeyo. waxaan leeyahay reer Ceerigaabo anigu haddii aan maayir ahaa muddo dheerna soo ahaa qof waxba idinkuma tarin idinkuna tari kari maayo laakiin waxaan idin ballan qaadayaa magaalo cusub oo Ceerigaabo wada laamaya oo xaafad wada gaadha inaan insha Allah u gaarsiiyo. waxa wanaagsan hadduu isu soo taago qofku inaanu oran waxaasan qabanayaa ama waxaasan qabtay waxa ka wanaagsan inuu marag furo shacbiga meesha ku nool. runtii waan ka mahadnaqayaa oo waa cadaysteen oo waa sheegteen waxaan idin cadaynayaa haddaba laakiin hadda waxaan sheegayaa intaan election ku dhicin May 31 waxaa noo diyaara 1200 foosto oo daamre ninkii arkay waa arkay waxaanu ka keennay Eeraan waxaa yaalin dawladda hoose waxaanu keennay macadaadkii oo waxba ka maqnayn ilaa iyo booyadii daamirka oo u dambaysay ilaa wiigana waxaa imanaysaa booyadii khashinka qaadaysay. waxaan idin ballan qaadaynaa intaan doorashadu iman inaanu bilowno insha Allah inaanu ku rajo weynahay inay dhammaadaan. iyaasaanu wadanaana waa 2 kilomitir ama waa 3 waxaana loo ku ballan qaaday 1 kilomitir oo GPLG la yiraahdo oo imika la yiri kilomitirkii ugu horeeyay ayaa la inoo ku deeqay qadaraaskiina waa la bixiyay wali nama soo gaadhin waa lagu dhadhami lagagama dhigo iyadoo ay noo samaysan tahay 19 kilomitir oo aynu ku samaysanay juhdigeenna iyo dadaalkeenna. qof wali baan arkayaa tiin dhawaan la keenay solar istareedada markii hore 25 xabba ku jiray 60 baa la inoo keenay 85 bay noqdeen muddo badan baanu daba soconay in badan baanu ka daba qaylinay ninkii inoo keenay wiigan u imanaya waxaanu u qoray 150 insha Allah taala waa helayna. sidoo kalena maayir Ismaaciil Xaaji Nuur waxa uu jawaabay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha oo maalintii shalay ka hadlay biyaha iyo leydhka jaban ee magaalada Ceerigaabo wuxuuna intaasi raaciyay in bulshadu ka fiirsato cidda ay dooranayaan oo wax qabadadiisii hore la eego. halkan shalaytu xaflad baa lagu qabtay ragaan uga weynaa waxay yiraahdeen musharaxiinta aanu wadnaa biyo jaban iyo bay keenayaan leydh jaban waxaa ka keenay magaaladani ka warhayn biyii waa jabinay leydhkiina waa jabin warkaasaan weli gaadhin weliba cid mas-uula oo magaca wasiir ku hadlaysay ayaa hadalkaasu ka baxay. waan ka xumaay runtii magaaladu u dhashay inaanu ka warhaynba baadi doona biyaha Hargeysa waxay maanta joogaan biyaha Berbere waxay joogaan biyaha Burco waxay joogaan haddaa aragtaan siyaada inaanu anagu wadno nala hadla noo sheega waa ka noqonayna. waxaan u salgoynay ceelasha biyaha in laga siiyo dadweynaha boostada 2500 oo laan booyadaha waxaan u goynay 8,000
waxaan ogahay inay qiimaha siin shacbigiinna ku shuqul leh hadday idinku kordhiyaan waa arrin sharciya gobol iyo degmaba waannu isku raacnay dee idinku ka dacwooda haddaase 10 ka siisaan waa taadan waa ina hebel idinkaa og annagu qiimahaasaannu u goynay 2500 in foostada laga siiyo dhowr qiime ayaa loo sameeyey laydhka waxaa ka mida dhulka ganacsiga 39 senti waxaa ku xiga dhowr iyo 40 senti waxaa ku xiga 62 senti oo guryaha magaalooyinka warsada wax ka badan haddii laydinka qaado nagu qayliya ama ku qayliya qodob shirkadda intaana sidaa weeye laakiin ninku markuu wax sheegayo waa inuu ka warhayaa magaalooyinka iyo magaaladu ka dhashayba waxaa hadalladii shalay ku jiray nin hadlay oo yidhi 60 jir baanahay haddaan wax qabanaya intii hore waxba ma sheegin wuxuu soo qabtay waxaan idin leeyahay nin walba baagaroonkiisa dib u doona hadduu 60 jir yahay hadduu 80 jir yahay iyo 40 jir yahay ninka xilka u dhiibanaysaan ama qofka xilka u dhiibanaysaan baagaroonkiina u baahi doona dib ugu noqda muxuu qaban jiray xaguu ku maqnaa muxuu soo qabtay haddaanu wax hore sheegin ama shacbigu sheegin oo yidhaahdo haddaan wax qabanaya adeer intii hore xaggaad ku maqnayd baanu leenahay laakiin taas shacbigiina saaran tahay gabagabadiina maayirka degmada Ceerigaabo waxa uu baaq nabadeed u diray dagaal la sheegay inuu ka soo cusboonaaday deegaanka Waqdariya ee xeebta waqooyi ee gobolka Sanaag maanta baaq nabadeed u jeedinaya oo degdega oo intaynu xafladda maamulaynay ina soo galay meesha la yidhaahdo Waqdariya in rabshadi ka jirto ama dagaal ka jiro Allahu akbar ilaahay waan ka baryaynaa inuu ka baqtiyo innagana rag iyo dumar waajib ayna ku tahay arrintan talaabo ka qaadno وإنه بيضة وأوجنتنا وأنا كلامي. عبد الرحمن الصرصاب TV Ceerigaabo.